ما شاء الله كان codkiis waa gaabiyaan kanno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي كسر دواء ما أنت برنامج حيس بدن ضدنا وبحنايين وحويه قابل لازم يكوشنر waxaan rajeynayaa dad badan ee ka mid ah medical students-ka ama bahweynta caafimaadka iyo qaybaha kala duwanba inay mararka qaarkood diyaariyaan loona diro questionnaire haddaba see loo diyaariyaa questionnaire way su'aashu maanta si fiican ayaan idinka dhajin doonaa adinkoo weliba afkiinni hooyo ku maqli doona insha allah haddii la haymo aan ku baahi beeli doontaan iphone barta soo ma asxaabta sugaya nin baa siinaya waa Facebook isto anigaan wallahi bila waxay isu ma Facebook isto cilmi weeyde ya earphone-kii azan kuwa dhaay haddaan bixirba ee isoo duceeya asxaabta camal saaxiib I don't know where I have put it it's not possible wallahi I don't know because you was using it sorry halkaas suudka ku jirtaa jaakada suudka aan ku dhibar hal ya sorry asxaabi ninkan baa mashquuliyay I don't know why he has been interrupt me all right asxaabi let me close this page also let me close this page saaxiibayaal waxa weeye waa baahida loo qabo sida loo sameeyo questionnaire waa maxay waxa waaye xog aruuris adoo isticmaalaya form kana soo buuxinaya dadka wareysanaya respondents-ka ama dadka runtii laga doonayo in xogta laga helo marka waa su'aalo diyaarsan iyo ma garanaysaa jawaabihiina laga doonayo dadkaas in laga soo qoro qaabka marka formka loo diyaarinayo ayuu ku saabsan yahay maanta casharkan baahida loo qabo awadeed ayaan casharkan u duubayaa waa mar si loo fiiriyo dib badan yahay questionnaire markii si loo fiiriyo waa fudud yahay it's not that much very big okay inaan diyaariyo questionnaire maxaa loo baahan yahay inaan haysto filekii lagu diyaarinayay waxyaalo badan baa lagu diyaariyaa questionnaire-ka info data ama excel laakiinse the best one is waa data application ama software okay waxaan aadayaa meesha iigu jiro filekaygu ama data-haygu meesha iigu jiro all right I have already the setup and waan haysta application-ka dabcan ama software-kana soo degsaday kan data when you enter into the folder data so markaad qaanadeeda gashid ama aad soo degsato there is triangular shape file waa fileka saddex xagalka ah ama u eg maxaa la yiraahdaa dibaalada uma baahna inaad installation wax ku samayso just you click on it double click on it okay waa soo furmay waxa ku soo furmay window-ga baa ku soo furmaya data window data editing writing data entry window waxaan doonayaa inaan bilaabo iminka questionnaire-kaygi xaggan ka bilaabaya si asoo bilaabaya all right halkan waxa ku qoran kor waad garanaysaa waxa ku qoran miyadii ama file check wixii caadi ahayo kuwii maxaan ku dhahaa word-ga oo kale ku qornaa ama any kind of application markii la galo kor waxa ku qoran miyadii the second line waxa ku qoran 1 ilaa 6 option lagu siinayo define data make data file checks enter data tab document export data intaas wixii xaba ku qoran lixda step si order u kala horeeyay waad aragtaa saas hadhow datadeena ama xogta aan ku xareynana aan step u dul istaagi doonaa all right haddaan bilaabanaa questionnaire marka inaad questionnaire samayso maxaad u baahantahay inaad haysto su'aalo waa inaad adigu aad haysataa su'aalihii halkaad garan lahayd ma halkan wax kaaga soo baxay su'aaluhu waa inaad adigu aad haysataa already as rough format waa inaad haysataa aad marka hore warqad soo diyaarsatay define data ayaan furayaa qaanada button-kaas aan furayaa labada option baa isoo kala baxaya new quest file open quest file it's very simple qof kasta wuu fahmaya hadda mid cusub samee iyo mid awal ku sii jiray soo fur marka hadda mid baa sameynaya click waxa ay soo baxday editing window meel wax lagu qori karayaa ay soo baxay receipt marka iminka waxaan sameynayaa waa template ama tusaale
waxaan ku bixinayo questionnaire ma wax runa oo macna sameynaya ma ahan tusaale ahaan marka koowaad waxaan qorayaa questionnaire muxuu ku saabsan yahay ka soo waxaan oranayaa ku saabsan yahay waxaan roobabku ma saameeyaan cholera marka waxaan oranayaa waa questionnaire about the relation association between rain and the cholera outbreak of cholera xiriir miyaa ka dhexeeya roobka iyo cudurka shuban biyuudka ayuu ku saabsan yahay titlekaygu I can manage it centerkan dhigi karaya centerka this is a kind of titleki wey macnaha assumption alright inter baan oranayaa markaas kadib hadda waxaan bilaabayaa marka dateki waxta aan ku qori karaya halkan haddan questionnaire bilaabaya laba qaybood ku kooban yahay variable line iyo label line marka su'aasha koowaad waxay oranaysaa dabcan waxaan ka bilaabanaa dateka formkan date buu leeyahay la buuxinayo date etana space waan ka durkayaa intaan rabaan ka durkayaa kaasunka waxa ahayd variable name bay ahayd etana maxaan ku qorayaa labelkii baan qorayaa the date of questioning maalinta dabcan xogta la soo aruurina weeye ama qofkan aad wareysanayso alright markaan labelkii hore maxaan sameynayaa I go here I hope inaad aragtid meesha aan dabcan si fiican aad aragtaan marjeynaya haddii brightnesska xataa u baahanto waan siyaadinaya markaan qoro label lineka markaan qoro dabcan laba jeer baan ka durkay ama inta rabtaan ka durkayaa etana waxaan sameynayaa godkii xogta lagu qori lahaa baan sameynayaa waxaan soo furayaa file waxaan oranayaa option baan ku dhufanayaa warqadan yartaa baa ii soo baxaysa halkan waxa ku qoran taabab kala duwan editor show data form create data file documentation advanced waxaan qorayaa show data form create data file baan ku dhufanayaa sorry I mean waxaan ku dhufanayaa create data file baan dooranayaa deetana waxaan oranayaa okay alright deetana waxaan sameynayaa markaas edit ayaan ku dhufanayaa waxaan oranayaa field pick list baan dooranayaa ama control plus q warqadan yartaa waa ii soo baxday warqadan yar waxay ka turjumaysaa daatada halkan xogta aad ku qorayso ama iminka date baan hadda ku qornay meesha what kind of data hadhow yaa lagu qoraa ma numeric ba ma value ba ma text ba ma date ba xogta ay tahay ayaa halkan ka dooranayna marka dabcan waxa weeye waa date rlmd date format baa jira foomam kala duwan baa jira dateka loo qoro marka dabcan kaasaan dabcan iska doorana I don't have time, brother, to answer your question. Okay, sorry. Let me to interrupt you because you give a chance for the people. Okay, go on. So I'm using software of GIS. All right. So when I check Ethiopian map here, all right, I want to select all right, one of the region. So try you هذا waa soo laabtay marka maxaan oranayaa insert baan oranayaa date soo gali checklistigan bartaas iyo yaal haduu rabo barta iyo yaal halkaas aan ku dhufanayaa datekan soo galiyay dabadeed ku dhufanayaa saan uga boodo oo u aado second variable su'aasha labaad baan aadayaa waxaan noqonaysaa case ka noqonaysaa case-ka aan qofkan wareysan doono marka maxay the case of being questioned
qofka la wareysanayo noqonaysaa this is tan waxa waaye variable name baa la yidhaahdaa kana waa label variable waa kanuu fasiraya kan horu fasiraya alright laba jeer baan space oranayaa already waaban iri waxaan doonayaa inaan soo geliyo godkii ama halkii hadhow xogta lagu buuxin lahaa marka case-ka la wareysanayo maxay waa number hadhow case-kan qaab lambar ahaan buu u kala horeyn doonaa marka maxaan oranayaa numeric weeye qiimaheedu laba god baan ka dhigay hadaan rabo laba lambar sababta ilaa 100 case ama 1000 case baan diyaarin karnaa maaha adeeg ku xiran marba lambarka aad doonayso 3 hash samaarta halkan saddex salaan baa halkan yaala insert baan oranayaa waan ka boodayaa enter baan oranayaa waxaan aadayaa second line waxaan qorayaa h space waxaan oranayaa the age of the case qofka la wareysanayo da'diisa waan okay marka halkan iminka sidoo kale aan oran karayaa halkan waan ka dooran karayaa hadda se waan iska xirayaa taas waad aragtay waad fahantay qaab kale ka fudud baan sameynayaa waxaan taabanayaa shift plus number 3 ama hash you see it right shift anta 3 shift plus number 3 ama shift plus hash ama salaan waxa u taqaanid tibay la mid process xaga aan soo marnay la mid tahay ahayd edit fill the pick list ayay la mid tahay waxa ka soo dartay la mid tahay marka this is a short way of sorting the pick list enter ban oranaya waxaan oranayaa residency xaguu degan yahay tanna waxay ka turjumaysaa the residence of what of the case ama question person ama case bode qofka la wareysanayo xaguu degan yahay ama magaala baadiya hadda baan qori doonaa alright yani ilaawin tanna shift plus number 3 ama salaan faari waan geliyay waxaan u boodayaa su'aal baan weydiinayaa imika su'aali bilaamaya qofkan meeshuu degan yahay waan ogaaday da'diisa iyo case-ka date-ka waan qoray hadda waxaan bilaabaya su'aalihi ahaa in lagu ogaan su'aalihi lagu ogaan lahaa xiriir baa ka dhaxeeya outbreak of cholera iyo rain okay waxaan question oranaysaa marka rain waa abrife waxa weeye wixii la oran jiray variable name-ki rain waan ka durkayaa aan oranayaa haddana su'aasha waan weydiinayaa marka do you think there is a causal relationship between rainy season and cholera outbreak su'aashu waxay leedahay ma u malaynaysaa in xiriir ka dhaxeeyo xilli roobaadka iyo outbreak of cholera deetana qiimo ma siinaya jawaabta dhowdo aan qofkaas ay siinaya marka aan hadda form kan diyaarsanaya jawaabihi ma hayo laba hash baan siiyay enter baan iri su'aasha labaad waxa weeye specify haddii qofkaas uu yiraahdo yes waan malaynayaa su'aal baa ka dhalanaysa halkaa waxaan oranayaa haddii aad tiraahdo yes if you say yes reason out reason it out sababe waa maxay sababtu waan oranaa deetana waan gudbaya waxaan siinayaa hash sababe ma ma ogta haddii aad tiraahdo yes xiriir ka dhaxeeya sababe baan oranayaa oo sabab samee how waxaan aadayaa su'aasha ku sii xigto ah su'aasha labaad waxaan oranayaa طبعا adayga kugu xiran tasaa wax u diyaarsan so aniga iminka waa tusaale ma aan xog aan soo diyaariyey marka waa ku dhex rafanayaa waxaan oranayaa
qaabkee looga hortagi karayaa kale dabcan wuu sababaya qofkaanu waxaan oranayaa cudurkan ma ka hortagi karnaa xilli roobaadka ka hor maxaa sidee baan uga hortagi karnaa ama maadaama roob imaanayo ma jiraan strategies ama qaabab aan uga hortagi karno ama u yarayn karno kolera haddii xirir ka dhexeeya oo sababaysay waxaan oranayaa preventive strategy طبعا halkan waa lasoo gagaabiyaa xarfo sideed ka badan ma fiicna markii aad starta iyo SBS aadid laakiinse imika waan iska badinayaa maadaama ay tusaale tahay preventive mechanisms there's no space halkan u fiirso iminka preventive mechanism inaan qoraan doonayaa space ma u dhexaysa labada eray laakiinse waana variable-kii marka lama ogola space inuu dhexeeyo variable-ka waxaan samaynayaa marka underscore shift plus minus hoose ayaan samaynayaa you get the point right waan ka durkayaa haddaan su-aasha weydiin waxaan oranayaa what kind of preventive strategies what kind of preventive strategies would you suggest to halt outbreak qaab nooceeya ama ka hortag nooceeya ama tillaabooyin nooceeya ayaad soo jeedin lahayd in cudurkan looga hortago space ma erid haddana shift plus number 3 ama hash alright taasna waan ka gudbinay su-aasha saddexaad su-aasha kale aan usii gudbaynaa oo alright okay specify waan oranayna specify oo haddii aad soo jeediso in la helayo qaabab looga hortagi karayo aad soo jeediso haddii aad soo jeediso tillaabooyin looga hortagi karayo sideed ugu hirgelin lahayd bulshada dhexdeeda sidee baad u gaarsiin lahayd ama suurtagal baa in hawshaasu bulshadu ay ku dhaqanto are these strategies applicable or practically possible for the society, for the community? tillaabooyinkan aad soo jeedisay preventive strategies aad soo jeedisay suurtagal ma tahay in bulshadu ay sameeyaan brother what are you looking for iPhone, yes. brother I don't know wallahi where I have yesterday all right oh my god it's here I haven't seen it sorry bro But we got this stress has to look it. Look for deetana waxaan siiyey qiimihii baan siiyey oo number 3 shift plus 3 ama salaanka iyo that means waxay la mid tahay anigu halkan edit aaday oo field picklist la soo baxay kadibna doortay kuwan mid ka mid ah iminka uma baani qaab short way ayaan isticmaalayaa because the short way is better than the long way always so I don't want to lose your time to waste your time this is a tusaale waxaan u malaynayaa maanta dhan su'aalan waan sii wadi karaa intaan rabaan buuxin karayaa waan sii wadi karayaa maanta dhan laakiinse this waa tusaale sida questionnaire loo diyaariyo weeye marka intaan maanta waxaan u gudbiyaa data creation of data samaynteedii ama xog su'aala samaynteedii intaan ma ku qabsanayaa waan sii wadi karayaa laakiinse ma garatay alright waxaan samaynayaa hadda failka waan safe garaynayaa date case age residence rainy specify preventive specify intaasaan su'aalahay ku daysanayaa deetana waxaan samaynayaa save the file open deetana save warqadan baa isoo baxaysa meesha aad ku save garaynayso waa muhiim inaad ogaato meesha ay ku taalo khaanada epidata ama softwareka khaanada uu kugu jiray baad aadaysaa meesha uu ku yaalo wherever you have located it baad aadaysaa ani hadda wixii iigu jiraa new volume
ayuu iigu jirtaa ep data. Waxaan kasii gelayaa meesha iigu sii jirto ah MSc epidemiology ep data bay iigu sii jirtaa. dabeetana markaan ep data gudaheeda soo galo waxaan ku save garaynayaa filekaas. halka anu hadda waxaan ku save garaysanayaa epi score folder. halkan 2 file baa kusii jiray. hadda kanna maxaa iigu qoran untitled 1. There's already a file that has been named as untitled 1. marka file hore oo la magac ku jiray maaha, waxaan ka dhigayaa untitled 4 sababta 1 waa iigu jira, 3 waa iigu jira, 2 waan ka boodaya iminka, number 4 baan ka dhigay saysan hadhow isaga ka ekaan. Look here, halkan hoose fiiri file tabka ama typeka noocu yahay filekani waa questionnaire file ama quiz file. file hadda aan save garanayo waa kii u horeeyo aan sameeyay quiz file baa leeyahay. kuwa ka dambaa soo socda waa ka bedelaan doona insha Allah. marka quiz file format weeye. halkan haddii wax kale ay kugu qoran yihiin ama hadda tan kale waan ka dhigo kale, haddii aan ka dhigo rag file ama waxaas kale, fileka waan waayaya. marka maxaan sameynayaa, halkan waa inaan ka doortaa quiz file. alright, save baan oranaya. marka iminka filekana waa ii save garaysan yahay. waxaan rabaa inaan u bedelo xogtan isdhex daadsan as a table ama questionnaire format. bal waan fiirinaya. you see right, weli iminka su-aashii datekii waa halkaas hadda uu ku qorayaa. case of the caseka la wareysanaya halkan ma xogteeda ku qori doonaa. age halkan baan ku qori doonaa. su-aashii kale halkan baan jawaabteeda ku qori doonaa. halkan eeg soo maarta, halkan boxkii la rabay inuu halkan yaalo, halkan box kale dheeriya soo galay. marka there's khalad baa jira, khaladka waan saxayaa. markii saas kale khalad u dhaco oo boxku meel aan loo baahnayn uu galo, waa in la saxaa. marka hadda waxaan sameynayaa filekan waan ka laabanayaa. saan u soo soco waxaan aadayaa file, waxaan oranayaa close form ama control plus F4. close form ama control plus F4 shortkiga waan xiray. waa kan waxa xogta hore ay soo baxday. marka halkan waad aragtay preventive mechanismka waa meeshii boxka dheeriga ku jiray. khaladku wuxuu ka imaanayaa waa calaamadda underscore. marka waan isku dhijinayaa labadan eray. intaan soo gaabiyo baan u daawadaynaya, tanna waan soo gaabinayaa, laakiinse m-ta waa capital baan ka dhigaya saan u dareensiyo inay yihiin 2 eray oo kala duwan oo la isku rakibay. meka oranayaa preventive mechanism bay taagantay. save halkan waa shortkey of saving ama file baan oranayaa. save as baan oranayaa ama halkan tan ku dhufanayaa already save. hadda si fiican u save garaysan yahay. haddaan oranayaa tijaabin waxaan oranayaa bal fiiri sanduuqii meesha inuu soo galay. marta waan ka saaray meesha sanduuqii. iminka su-aal kastaba boxkeeda waa hor yaallaa jawaabtii loogu qori lahaa. kanoo kale u fiirso xarfihii qayb baa maqan oo sanduuqii bay ku hoos jiraan ama wayba qarsoon yihiin. marka what's wrong, maxaa khaldan? the same to this. tana waa la mid, tana waa la mid. control plus F4 baan taabanayaa. that means waxa weeye su-aaluhu waa dheer yihiin. halkan space baa ku jira. tan haddaan dib usoo qaado iminka, haddaan saa dib ugu soo qaado, okay, haddaan dib usoo qaado tana dib aan usoo durkiyo, su-aalaha qarsoon bay ka mid tahay. xarfihii qarsoona waa soo baxayaan. marka waxay taas ku xiran tahay variableska iyo labelska spaceka u dhexeeya ku xiran tahay. alright, save. haddana waxaan oranayaa bal itus save ka tahay. xarfihii qayb baa soo baxay soo ma aragtid. marka hore underga ku joogtay, hadda 3 space baan dib u celiyay, ko baa ii soo baxay. cholera outbreak baa ahaydna. marka it doesn't matter halkan file inuu ku qarsoon kale hadii saas male hadhow formku si fiican buu soo baxaya. controls hadda waan xirayaa, control plus F4 waan xiray. kan laftigiisa waxaan u baahanahay kale inaan line up gareeyo oo simo sanduuqyada xogta lagu qoray inaan siman doonayaa. waxaan sameynayaa I put the cursor, bahalkan cursorka waxaan dhigayaa su-aasha u dheer waa tan soo maaha. su-aasha u dheer waa midaas, su-aal ka dheer ma jirto qoraal ahaan. meeshaas ka dambeysa ayaan dhigayaa cursorka. deetana waxaan oranayaa edit baan aadayaa. markaan edit aan aado waxaan oranayaa align fields sin baan oranayaa. iminka ma aragtaa way siman yihiin sanduuqyada wax lagu qori lahaa. kana xoogaa weli ka duwan. isagaan marka waxaan sameynayaa kan ka duwan baan dhabarkiisa ku dhufanayaa. edit baan aadayaa, waxaan oranayaa align fields. ma aragtaa iminka waa siman, si fiican bay u siman yihiin. right, okay, you see now there's something wrong here.
waxa weeye xarfihii halkan yaalay waa sug bin sanduuqii hoosta ka soo galeen. Let me go back and control plus F4. tanoo kale way qabsata maahan space baan soo durkinayaa intaas maaran soo durkinayaa iminka bal ku fiiri soo bixin maaha weli waxbaa ka dhiman control plus F4 dib u celi alignmentigu waa wuxuu u baahan yahay su'aalaha qoraalkooda size-kooda ama dhererkooda length-kooda ayuu ku xiran yahay alignmentigu sababta su'aaluhu isma dherer leka. Alright, save datana show me alignment. hadda su'aalihii waa waxoogaa waa muuqdaan alignmentigina waa fiican yahay. Alright, waan save gareeyey control plus F4 waa iska xiray kanna waa iska sii xirayaa. hadda filekayga waa ii save garaysan yahay everything waa ii save garaysan yahay. lambar 1 taasaan uga soo dhamaaday. hadda fileka haddaan rabo inaan ogaado noocuu yahay waan ku laabanaya ma save garismay mise ma save garismay open file baan oranaya keebu ahaa number 4 kaas number 4 ku qorantay waa open baan oranaya this is your file marka waa maxay filekaasu waan save gariyay ama questionnaire waan create gareeyay waan save gareeyay control plus F4 iska xir. number 2 baan aadaya oo ah make file data rec data wax la yiraahdo sameeynaa marka rec data saddex qaab baa jira quest file rec data check file inta ka dambaysa waa iska documentation-ka iyo process garanti. rec file wax la sameeynaa rec file saan u sameeyo make data file baan ku sulfanayaa ama number 2 halka haddaad fiirisid maxaa ku qoran qaanada kugu jiray filekaagu iyo fileka magaciisa wakaa oo ah quest file you see it right quest file. All right, the same to this. marka maxaan oranayaa waxba halkan ka dooran maayo okay I wanted to make rec data rec file wax la yiraahdo sameeyaan doonayaa any kind of name waxaad ku qoro waxaan oranayaa this is exercise 1 baan ku qortay anigu okay wuxuu ku yiri rec file data file my folder ku jira halkaas weeye Xcode ku sii jira magaciisu waa untitled for rec file is created rec file baa la sameeyay kii hore quest file baa hadda rec data ama rec file ayaan sameeyay. Okay, alright, hadda waxaan sameeyay rec file baan sameeyay waxaan usoo gudbiyaa number 3 oo ah kii questionnaire-ka waan ku xadidiyaa questionnaire dabcan wuxuu daan doonaa jawaabahaas marka waxaan doonayaa jawaabaha la xiriira questionnaire-ka aan sameyn doono jawaabaha aan xiiseynayo inaan ku buuxbuuxiyaan doonayaa meesha automatically si hadhow qofku u doorto sababtoo ah halkii su'aalba qofku si uga jawaabi kara waxaan doonayaa halkii su'aalba dadku dhan inay isku soo uga jawaabaan macnaha inay helaan listi ay ka doortaan jawaabahooda hal listi. number 4 waa kan iminka waa rec file baa la yiraahdaa halkaas aad ka aragtaa rec file inuu yahay you see here there is rec file rec kii hore muxuu ahaa quest file deetana open baan oranayaa waxa ii soo baxay questionnaire-kii hore aan soo diyaariyay iyo boxyadiisii variable nameskiisii iyo label listigiisii halkan warqadan baa igu dheeriya warqadan waxa weeye sorry tusaale ahaan markaan iraahdo residence of the case xageed u degaana qof baa wuxuu oran karayaa Mareykan qof baa wuxuu oran karayaa baadiyo qof baa wuxuu oran karayaa magaalo qof baa wuxuu oran karayaa tuulo qof waxba ka soo dhacay soo maahan marka waa inaan sameeyaa anigu jawaabaha aan xiiseynayo oo qofku u dooran list waa inaan sameeyaa saddexdan jawaabood ama saddexdan degaan mid ka dooran waa inaan iraahdaa soo maaha qofka choice baan siinayaa laakiin qofba durdur iyo xulama doonayo qof Mareykan iyo qof Ingiriiska iyo qaado qof Soomaaliya qof galgacayo qof Hargeysa qof maxay qof baadiyo qof inuu su'aasha ay noqoto confused ma doonayo waxaan doonayaa su'aal very narrow inaan sameeyo. All right, warqadda inta way soo baxday halkan waxaan ku qoray range iyo legal wax la yiraahdo shayga qiimaha aan meelaha gelinayso hadii leeyihiin range oo intaas inta ay u dhexeeyaan ay leedahay xisaab ahaan ama hadii uu leeyahay qiimo aan la doonayn hadii qiimo ka bood uu sameynayo oo hadii markiis qofka haduu su'aashaas koobaad uu buuxiyo kale waxaad u boodaa su'aasha afraad ama su'aasha shanaad automatically marka tan waxa weeye wax xadidaadii waxay ku xadidaysaa jawaabahaaga ayaa xadidaysaa. All right, waxaan sanduuqa koobaad baan dhex dhiganayaa cursor-kayga wada arkaa soo ma calaamadsan yahay oo ah date-ka weeye date-ka marka date-ku wuxuu ka bilaabmi karayaa waa infinite number baa la yiraahdaa ama any kind of
waad gelin karaysaa mar kastaba. Marka date-kayga waxaan ka bilaabayaa waxaan oranayaa waxa u dhaxaysaa waxaan ka bilaabayaa sanadka cusub bisha koowaad bisha maalinta koowaad baan ka wadaa maalinta koowaad bisha koowaad 2020 ilaa questionnaire xogta waxaan buuxinayaa ilaa bisha kowda bisha labaad /2020 hal bil baan questionnaire soo aruurinayaa. bishaasaan doonayaa inaan xogtayda aruuriyo oo aan soo wareysto asxaabtayda ama dadkaan ka doonayo questionnaire-ka xogtiisaan ka doonayo. deetana waxaan imaanayaa halkan taas waxaan waa range-ga date-ka range waxaan bisha ilaa bishaas. alright hal in camle daniyo hada qulma ahaya halkan man master enter baan imaanayaa date-ka qofku ma ka boodi karaya mise kama boodi karayo. waan u baahanahay date-ka xogta la soo aruurinayo khasab weeye in la qoro wax bilaa date in la qoro ma doonayo. yes ma halka dhigaa master enter repetition I don't need repetition automatically baa hadhow ana u soo celin doona marka daas ma repetition ka boodaya. halkan waxaan imaanayaa value label box baan imaanayaa meesha blasta ayaan ku dhufanayaa saan u xadido date-ku halkaas waxaan ku qorayaa show date comment it doesn't accept because there's no value wixii la tusay abandon ma oranayaa marka master enter waaye halkan wax qiimo date wax qiimo uma gelinayo save baan oranayaa. waxaan aadayaa secondary box ama secondary variable baan tegayaa waxaan samaynayaa halkan master enter baan oranayaa. deetana case-kayga wuxuu u dhaxaynayaa intee case baan doonaya inaan wareysto intee qof baan doonaya inaan questionnaire ku wareysto. waxaan ku qorayaa calayhi salaatu wasalaam hal case ilaa 1000 case 1000 qof baan rabaa inaan wareysto intaas deetana save baan oranayaa. halkan master enter baan igama boodi karayo. godka saddexaad baan imaanaya oo ah age qofka la wareysanayo age-giisa waxaan samaynayaa marka age wuxuu u dhaxaynayaa age-kana range baan siinaa waxaan oranayaa qofka dadka la wareysanayo waa in ka weyn yihiin 20 inay u dhaxayaan 50 ama 60 20 iyo 60 inay u dhaxayaan. salaam qof 19 ama under age ma wareysanayo anigu sababtoo ah it doesn't have more experience khibrad badan ma leh waxyaaba aan xogtaan doonayo. sorry 60 wax ka weyna balowlow xogta isku dardarayaaba. guys please voice down your don't interrupt me please guys I'm teach somebody very hard lesson. alright okay halkan master enter baan oranayaa godka lagama boodi karayo xogta waa in age-ka waa in qofku uu qora la wareysanayo. alright ayana waxaan oranayaa save value label ayana uma baahni. waxaan u imaanayaa residence deegaanka qofka la wareysta xagga degan yahay meesha aan xogta ka doonayo waxagee deetana iyadoo range u samayn maayo. halkan inta waxaan oranayaa yes deetana waxaan imaanayaa halkan baan imaanayaa qiiman gelinayaa meeshaas halkan waxaan ku qoran label 1 residency iyo end waan ku qoran meesha laba dhexdooda cursor-ku boodboodayo number 2 waan ku qortay waan ka durkay waxaan ku qorayaa residency waxaan doonayaa gaalkacyo qofkan wuxuu degan gaalkacyo number 2 wuxuu degan yahay alright hargeysa number 3 wuxuu degan yahay xamar number 4 baydhabo waan ka dhigay number 5 waan ka dhigay garowe waxaan ka I've already written it was the first one. okay thank you. number 6 waan ka dhigay boosaaso waxaan ka dhigay ii sheeg magaal kale las ano number 7 las ano. guys what's wrong with me today?
lambar 8 erigabo erigafo af Soomaali baan wada qoray xoolo alright waxaan kaloo gelinayaa jigjiga lambar 9 waxaan ka dhigay jigjiga waxaan doonay inaan wariso Soomaalida oo dhan lambar 10 waxaan ka dhigayaa Allahu musta'aan ala ma tasifun xageeban ka boodi this example inta kale waa ku cadfan yihiin macduufun ala intaas bay ku sii jiraan ku sii dabar jiraan deetana maxaan oranayaa iminka waan qoray qofku dabcan meesha uu dooran lahaa residency-ga accept and close halkan wax laga rabaa waxa weeye kelimada end iyo qoraalkaaga halka ku qorayso waa inaysan u dhaxayn wax space there's no space su'aal ahaan haddaan enter dhaho oo aan isku dayana do accept close iga aqbal maayo see it marka waa maxay khaladku halka space tan ka saaraya smart space tan ka saaraan aan save dhaho already uu save gareeyay waan ku laabanayaa meesha idinsan wili waxba igu harsanaan rabaa inaan so waxaan samaynayaa haddii kelmadaha halkan ku qorayso ay ka badan yihiin hal eray tusaale ahaan hargeysa cadee baan iri waxaan isku dayaa inaan do save ma aqbalayo because there is space laba eray hadduu kelmadu lagu qorqorayo lambarka ay ka badan tahay hal eray ama hal word waxaa loo baahan yahay inaad geliso waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa calaamadahan quotation ma yaalaa quotation ayaa labada dhinac ka dhigaysaa double quotation ma ka dhigaysaa labada dhinac deetana save it wixii replace existing faylka hore aad save garaysay ilaa marka hore save ma accept and close tire ma garanaysaa waxaad doonaysaa inaad ku bedesho midkaad aad qorto hargeysa caddi aan ka bedel intaan iminka yes I want to change it all right halkan maan ku dhufanayaa edit iminka xogta waan label gareeyay edit baan ku dhufanayaa qaybtaan baa isoo baxaysa halkaasaan dhiga cursor-kayga recipe gadaashiisa dadaan oranaya show enter baan taabanayaa type comment macnaheedu waxa weeye hadhow baad arki doontaa markii boxka la buuxiyo boxka lambar ay baan gelin doonaa hadhow gaalkacyo kale lambar 1 baa u taagan gorowa lambar 2 baa u taagan boosaaso lambar 6 baa u taagan noocaas ma so boxada hadhow waxaan gelin doonaa magacyada gelin doonaa lambarada gelin doonaa markii lambar 1 box aan geliyo lambar 1 muxuu ka dhigan yahay magaaladu taagan yahay gaalkacyo Soomaa gaalkacyo sanduuqa ka soo baxda hortiisa accept save waxaan aadiyaa next box baan aadiyaa su'aasha waxay leedahay do you think there's a causal relationship between rainy season and the cholera halkan yes baan oranayaa horta must enter halkan data waa in la geliyaa way macnaheedu qofka geedka soo maray lagama boodi karayo dabeetana waxaan imaanay meesha tabalas baan ku fanayaa halkan waxaan oranayaa su'aashu waa maxay su'aasha waxa la yiraahdaa boolean type ama waa yes iyo no you think ma malinaysaa yes ha may way Soomaa lambar waxaan oranayaa yes kow waxay taagtaa yes lambar 2 no there's no space so marka halkan end dabeetana waxaan oranayaa simply accept lambar 1 maxay taagtaa yes lambar 2 no hadhow qofku waa inuu ogaadaa Soomaa anigu baa og halkan ay ku xareysan tahay marka waxaan oranayaa lambar 1 waxay u taagan tahay qofka tus hadhow show type comment show type comment all right save let me go to the next page or next focus next question so waxay leedahay if you say yes reason out haddii aad tiraahdo ha xiriir baa ka dhaxeeya sababee hilmi waa inaad iska sabaysaa hal inuu iska doonamayne okay sababee soo maahan hore lambar 1 waxaan sababta uga dhigay sababtooda waxa weeye sababaha waxaad ka wadaa the flies waxaan oranayaa daadadka ayaa waxay qaadaan microorganismkii dhalinayay cholera ma viral disease baa mise waa bacterial disease cholera guys viral disease right okay flies all right good flies spread the virus among black cells among here the society
fayraska daadadka ayaa waxay faafiyaan fayraska oo qaado oo environment-ka ku kala gudbiya inaad ka wadaa number 2 waxaan oranayaa contamination of sababtaan waxa weeye contamination of water with wasakhdii maxaan ku dhahay suuliyaasha oo kale sewages biyihii miyacna wax ku daa waxa wasakheeyey biyaha suuliyaasha wasakdoodii number 3 sababtaadma waxa weeye the rain itself carries the virus roobka dultiisa virus la socda miyaad ka wadaa number 4 ma waxaad ka wadaa ilaahu allahu almustacaan calaa ma tasifuun ma waxaad ka wadaa any kind su'aal waxaad ku dar leys anu intaas ay u soo dhacday waa ku gudbiyaa ku sii dhex rafan maayo muhiimadda waxa weeye adaad waxaad u formulate garaynaysaa qofka aad xogta ka soo aroorinayso su'aalo iyo jawaabo sii diyaarsan si asagu uusan u fakerin oo intuu saa u akhriyo uu kugu dooro mid asagu markaa jawaabta kula habboon ugu doorto iminka waxaan ku qoray number 1 sababteeda waa sidaas number 2 sababteeda waa sidaas number 3 sababteeda waa sidaas deetana waxaan oranayaa safe wuxuu ku leeyahay cause halkan hadda safe dhaho ma u yeeli sababta aan marka hore halkan waa inaan ka save gareeyo accept and close deetana safe maxay harsan number 1 maxay u taagneed sababta kooda waxay falaadis spread the fire somehow who knows qofku hadda halkan number 1 kaliya aan ugu qoro number 1 waxa taan qof ma garanay Soomaa marka maxaan sameynayaa waa inaan dhahaa okay please wait me I can hold on a second okay type comment waxaan oranayaa tus qofkan lambarradu waxay u taagan yihiin tus all right type comment save all right go on. What's your question bro my question all right sorry there has been interruption I will ask you su'aashaas waan buuxiyay hogteeda ayana furay next question preventive mechanism what kind of preventive mechanism strategy would you like to suggest okay halkan waxaan oranayaa yes this socket or this hole or this button must be filled aan oranayaa kow wuxuu yiri su'aasha maxay ahayd preventive mechanism noocee ayaa soo jeedinaysa in looga hortago cudurkan okay number 2 sewages must be managed bilacdaha waa in la maareeyo oo aan suuq lagu sidayn taasan ka wada anigu ingiriis I don't know this is my assumption number 2 waxaan tagaysaa we have disturbed you right sorry su'aasha waxa weeye jawaabta waxa weeye proper sanitary practice at home nadaafadda guri si fiican nadaafadda in la hagaajiyo waaye proper sanitary practice at public nadaafadda suuqa iyo bulshada dhexdeeda in aad loo hagaajiyo qashimada la xaaqo bararaq waxaas weeye all right the next question the answer waxa weeye good healthy surface in la helo healthy surface fiican in la helo وأسمع واحد من معناه ده لما استحنا أو معناه ده صح إنه هي قسم ما واحد هذا مقرية مهمته حوية هذا حقت الديار سنة صار قبل أقول له واحد سامبل هذا واحد يعني ساين illegally ways of preventing cholera قاب في عام لقورت إنسان بالغياب لكن سو حوي مهمته تسالة قاب كذا حقت هذا أقول وكشان الله accept and close save it
waxaan doonayaa marka lambarada haddaan jawaab kastaba lambar baa iigu taagnaa marka lambarka keliya ma doonayo hadhow meeshan kasoo muuqdee lambarka iyo wuxuu taagan yahay waxaan doonayaa in hadhow meeshaan ka arko qofku uu arko show enter baad taabanaysaa type comment accept and close. I'm coming to my last question which saying are these strategies applicable or practically possible? Bartilaabooyinka aad soo jeedisay suurtagal ma yihiinoo wax bulshadu ka bixi karayaan ma yihiin? Okay, yes and no. So maaha jawaabtu waa maxay? Su-aasha marka u fiiriso kind of Boolean type weeye waa yes and no ama binomial waaye. Kow yes, number labo no. All right, accept and close. Halkaan waxaan oranayaa oo ku laabanayaa show type comment accept close saved. waan dhameeyay hadda ma su'aal kale is harsan maya. So hadda waxaan sameeyay fixation wax la yiraahdo ama restriction. qofkan markuu su'aasha akhriyo wuxuu helayaa jawaabo uu ka doorto jawaabta isaga la qorxoon. waan u dhameeyay Soomaa hadda ma doonayo qofka inuu qar kale ay fuulo. intaas way questionnaire sababtoo ah dabcan waxa waa cilmi baaris research kan waxa weeye maaha wax umada kaliya laga dhaxraadinayo already adigu waxaad haysaa su'aalihii qof kasta isweydiin lahaa oo adaa soo analyze gareeyay soo nashqadeeyay jawaabaha ugu macquulsan ama ugu ballaaran oo qofkaas ku fikri karayna waa u diyaarisay marka qofka waxa u fududeysay inuu doorto the exact answer ama the exactly causal relationship ama malaha ugu wanaagsan ee waxaas la isweydiinayo magaranaysaay looga jawaabi karayo ayaad u dhigtay marka waa maxay waa easy find qofka waxaad u fududeynaysaa inuu si yar fudud uu kugu jawaabo close it quiz file waan soo sameeyay rec file waan soo sameeyay check file baa la yiraahdaa kan hadaan sameeyay check file oo haddaan doonayo inaan arko check file maxaan sameynayaa waxaan oranayaa halkan baan imaanayaa number 4 number 2 number 2 number 3 waan soo dhameyn number 1 muxuu ahaa file cusub baa la sameeyay number 2na file cusub baa waxa loo bedelay rec file oo ah kii satuqyada lahaa wax lagu guuriyay iminka xadid aan xadidinay check file kan u soo gudubnay oo xadidaad aan ku sameynay iminka waxaan doonayaa inaan ku guro datadii qofka hadda wareysanaya number 4 waan ku dhuftay waa kan number 4 waa rec file datada waxa lagu gurayaa waa rec file marka formka aad diyaarisay dabcan ama waa daabici karaysaa ama online ahaan baad ku buuxin ama saan maxaan ku dhahaa soft ahaan baad ku buuxin karaysaa sida imika yahay ku buuxin karaysaa open rec file ayaa weeyaa kan furaya rec file open kana isoo baxay hadda questionnaire-kayga muxuu u diyaarsan yahay inaan xogtii ku buuxiyo date haddaad xasuusatid orderka xataa marka hore aan u sameynayna date let me close once waxaan ku tusayaa dib aan u laabanaya waxaan aadayaa open file quiz file kan aadayaa number 4 halka u fiirso date-ka orderka aan u sameynay fiiri maalinta horeysa bisha ku xigta sanadka u dambeeya marka hadhow markaan date ku buuxinayo haddaan bishii ama sanadka soo hormariyo iga yeeli maayo sababtoo ah already waxaan xadiday format date-kayga waan xadiday oo ah oo aan ka dhigay maalin bil sanad orderkeeda alright waan soo laabtay okay haddaan datadii ku gurayaa marka tusaale ahaan maxaa yeelay marka weliba range baan siiyey oo ahaa inuu ka bilaabmayo January 1 2020 ilaa February 1 2020 hadda waxaan gelinayaa 22 bisha December 2019 iga yeeli maayo sababtoo ah wuxuu ku leeyahay legal values-ka aad xadiday ama range-ga aad tisay wuxuu ka bilaabmayaa January 1 2020 ilaa February 1 2020 marka wax inta u dhaxeeyo ayuu u baahan yahay ka badan wax ka dambeeyana ma aqbalay wax ka horeeyana ma aqbalay all right waxaan sameeynaa marka 01/01/2020 2020 okay I did mistake 20 haddana maarta uu ma diidina waa aqbalay godka labaad uu gudbi you see right haddaan ka dhigo 2023 ka war ma aqbalay sababtoo ah xadidaad baan u sameeyay 2020 godka labaad asaa automatically ku geynaya ama waxaad isticmaali karaysaa tab
waxaad kaloo isticmaali kartaa iminka halkan haddii aad doonaysa inaad bedesho calaamadda waxaad taabanaysaa blast blast ku taalla keyboardka calaamadda blastka keyboardka hal mar taabo tirtir marka hore deetana blast taabo oh what's wrong all right yeah this is not the case halkan maaha waa boxyada kale weeyaa sorry 01 markaan 01 taabto taab haddaan idhaahdo automatically saa u gelinaya all right 01/2020 the case of being questioned case-kana maxaan ka dhignay kow ilaa case 1 ilaa kun case baan ka dhignay marka case 1 baan hadda gelinayna case koowaad baan qoraynaa waa ka socda tab baan taabanaya ama cursor-ka hafta waan isticmaali karaa like tab-ka fiican tab button-ka ama tab lambarka ku yaala keyboard-ka inaad isticmaashaan fiican age of the case ayana maxaan u sameeyey range dadka aan wareysanayno 20 jir ilaa waxaan niri 60 jir haddaan geliyo 19 jir ma aqbalayo sababta ah legal values aan u sameynaa maxay 20 ilaa 60 all right waxaan sameynaa markaas waxaan oranayaa 21 buu jira qof aan wareystay wait 21 buu jira baan iri tab baan taabtay automatically sanduuqa labaad markuu tago wuxuu siinayaa choice option buu siinayaa oo ah xogti maxay ahayd su'aasha kale residency qof meeshu degan yahay residency-ga yahay marka qiimihii aan ku guriyay meeshii residency-ga meesha ku guriyay oo anigu aan ku automatic gareynayay ayaa ii soo baxaya ma doonayo qofku inuu meel kale ilaado hadduu ka waran waxaan aadayaa Kenya maxaan ku dhahaa Garissa ama Florida meel kale wax ku qora ka war no waxaan doonayaa kaliya magaalooyinkan Soomaalidu degto qof degan oo ka warrama cudurka kolera iyo reenka soo isku xiriiraan okay qofkan wuxuu ka soo jeedaa let me say Argafo member state baan geliyay tab baan taabtay warqadan ka soo jeedaa ka soo fogay halkan soo dhigaya Soomaaliyeed halkan maxaa ku yaala Argafo member state waxay taagan tahay Argafo qofka waan fahansiiyay si fiican ayaan ugu sharxay malaha automatically sanduuqa labaad baan dul imid ama tab baan taabtay su'aashu waxay ahayd ma u malaynaysaa in xiriir ka dhaxeeyo roobka iyo weliba xiriir kaliya maahan xiriir ah in cudurku uu ka dhasho roobka ay isku xiran yihiin yes and no way so a Boolean type ama binomial type of question yes and no yes buu qofka 22 jirka ah ee cirgaabad kan wuxuu yes there's xiriir baa ka dhaxeeya haddii marka tanna maxay lahayd haddii aad yes tiraahdo sababee specify waxa weeye haddii aad yes tiraahdo reason it out sababtu waa maxay qofkan wuxuu leeyahay wait blast ninka waxtaan blast haddaan lambarka blast taabto waxa soo laabanaya sanduuqii floods spread the virus dadka ayaa viruska faafiyo oo kaxeeya contamination of waxay sewage-ka bulaacadaha weeye oo wasakhowda roobka laftigiisa ayaa keena subxaanaka allah bihamdika waxaan waa iska tusaale waayo ku dambaamayna contamination of sewage marka baan nidhaa ayuu ku joogaa qofka lambar tab baan taabtay lambar 2 maxay ka dhigan tahay ama u taagan tahay contamination of water with sewage all right sanduuqa saddexaad waa what kind of preventive strategies would you suggest to halt tilaabooyin noocyo ayaad u soo jeedinaysaa in looga hortago ama lagu joojiyo outbreak noocan oo kale ah sewage must be clear iskuulay waxay must be managed proper sanitary at home proper sanitary at public good health service waxaas dhan keebaad ka dooranaysaa qofku waxa siisay jawaabi uu ku fikri lahaa oo dhan baad u soo fududaysay all right kan wuxuu yiri proper public waxaan ka dhiganaa proper sanitary at public number 3 proper sanitary practice at public the last question are these strategies applicable or practicable possible suurtagal ma yihiin tilaabooyinkan aad soo jeedisay ama mid aad soo jeediso ah public practice in la sameeyo sanitary public practice in la sameeyo wax suurtagal miya oo dadku waxay ka bixi karayaan ma wax practically oo dadku ay sameyn karayaan si cudurka lagu yareeyo miya yes sababta ninkan mar hadduu soo ku jawaabay jawaabtiisu waxa dabcan noqonaysaa yes haddana wuu oran karaa asagu doesn't matter okay double click iminka waan wada buuxiyey qofka koowaad waan wareystay questionnaire-kii koowaad waan buuxiyey questionnaire-kii hadda waa case koowaad ilaa kun case mar inaan sameeyo marka iminka waa tusaale
at least waxa loo baahan yahay inaan samayno 2 case double entry baa la yidhahdaa double entry at least 2 case baan samaynayaa tab haddaan iraahdo iminka waan dhameeyay su'aali soo maaha tab baan taabanayaa wuxuu yidhi save record to disk do you want to save to disk waxaad doonaysaa inaad save garayso questionnaire aad samaysay data entry-ga aad samaysay xogta aad soo aruurisay inaad save garayso yes wuu save garay xogtaas case-ka labaad baan u gudbiyaa maalintii labaad oo ah 2/01/2020 sorry maalintii labaad soo maahan case-kana waa case-ka labaad waa tab baan iri age of the case ninkan wuxuu jiraa hadda la wareysanayo ama qofka ninka ayaan oranay qofka la wareysanayo wuxuu jiraa iminka waa konton jir khibrad baa dishay ninkan tab baan taabtay wuxuu degan yahay ninkan waa magaaladii allah or magaaladii raggan ka tegay magaaladii ragga burco aan ka tegay la magaalada labaad oo ragga baan dooranaya gaalkacayo baan doortay waa ka tegay wuxuu yiri yes xiriir baa ka dhaxeeya waan bedelaya markaa waa raggii baan tegay moos raggu waa ku adkeyn badan yihiin waa gaalkacayo reer mudug waa indha qarjac bay wadaan moogtahay wuxuu yiri there's no relationship wax xiriir kama dhaxeeyaan lambar labo tagayo all right there must be mistake here halkan khalad baa jira hadduu hadda uu no yiri dee isagoo uma baahna inuu sabab sameeyo marka sababta sawir maba aaminsana inuu xiriir ka dhaxeeyo roobka iyo cudurka marka su'aashan waxay ahayd haddii uu ka dhaxeeyo xiriir ama ayas aad tiraahday sababay soo maaha marka hadda no buu yiri marka su'aashan si uga boodna marka iminka kama boodi karo u fiirso cancel baan kan oranayaa tabkaan soo maran ka gudbi kartaa tab haddaan iraahdo waxaan ku leeyahay you must enter sababta markii aan bixinay maxaan niri iyo meesha must enter ku qorneed baan yes niri marka inaan dib u laabanay noqonaysa halkaas aan ka qaadno option-ka ah must enter close dib ma hadhoon bixinay waxaan soo laabtay aan xirayaa no I don't want to save xogta inaan hadda save kaliya ma doonay sababta waxa ka qabiya no waxaan ku laabanayaa check file-kii aan ku laabanayaa number 4 baan dooranayaa file-kii check file-ka halkan waxaan imaanayaa su'aasha ah halkan baan boxkan baan imaanaysa boxkan waxaan siinayaa ikhtiyaar ah in laga boodi karo isagoo maran lana buuxin karayo sababta ah haddii yes kaliya la yiraahdo ayaa loo baahan yahay in la buuxiyo marka meesha master inta maxaan oranayaa no save saxir marka tan kale ka waran tan bistan waa caadi waxaan imaanayaa data entry-ga ku soo laabanayaa xogtii baan ku gurayaa iminka waa waxaan oranayaa 02/01/2020 waa 02 case-ka labaad weeye no 01 sababta lama doonayo double entry-ga waxa la rabaa labada case inay isku daba jiraan markaan buuxiyo waan saf gareeyo double entry-ga sax u noqdo in haddana aan case-ka labaad buuxiyo anoon xirin had maadaama aan soo xiray inaan dib ka soo bilaabay noqonaysaa marka okay dib ma la dhigi kaas age-ka waxa noqonaya waa konton jir sorry way ma little bit waxaan doonayaa inaan ku soo daro magaaladii ragga inaan ku soo daraan u baahanay meeshan burco waxaan imaanayaa residency-ga halkaasaan dhex dhiganayaa deetana waxaan oranayaa balastan ku dhufanayaa halkan lambar 10 waxaan ka dhigayaa magaaladii raggaay burco kan do you want to replace existing label yes I'm gonna to replace save close data entry-ga hadda imaanaya waan soo doortay number 4-ka iyo magacaygii file igu qornaa haddaan ku guriya date-kayga marka 01 aan ka bilaabaya nab 01/2020 baan ka wada wariyaa computer way fahan case-ka waa maxay waa case-ka koobaad ma oranayaa konton jir weeye residency-gan imaanayaa waa ceelkii ragga burco waan ka dhigay markaan do you think yes buu ninkan reer burco deetana wuxuu yiri sababta wuxuu ka dhigay daadadka faafiya su'aashan kale uu yimid wuxuu yiri qaabkee looga hortagi waxa looga hortagi karayaa proper sanitary at home deetana wuxuu yiri yes waa practical tab baan iri
Do you want to save this file? Yes. Second case ma u gudbaya oo la sameeyey bisha labadeedii 2020 sanadka cusub. Case-ka labaad weeye waan ka gudbayaa age-kiisa waxa jira waa content jir kale waan ka gudbayaa wuxuu degan yahay ninkan Boosaaso Lascano muu degan yahay Kalkacayo waa ka sugnay halkan baan nimid rainy season yes bi xirba ka dhaxayo kan yiri contamination of uu sababeeyay proper sanitary at public wasna doortay yes biyasna all right taban iri safgareys case-ka labaadna case-ka saddexaad ma u gudbayaan doonayaa inaan meel kale ka soo qoro magaalo kale all right was your 3 maalintii saddexaad ayaan wadaa bishii koobaad 2020 case-kan waa case-ka saddexaad age-ku waa 3 jir doobo intaas garbuhu leeyihiin rasina wuxuu degan yahay ninkan xamar cadde buu degan yahay xamar ilaahay nabad ha ku siiyo waan ka booday waxaan yes no there's no causal relationship between rainy season or rain between rain and wixii kale cholera okay marka maadaama ay xirkama dhaxayaan we don't need to reason it out sabab loo baahan ninkaas sababta wixii wax xiriir kama dhaxayaan jawaab su'aashana waxay ahayd if you say yes there's a relation between rain and cholera reason out marka waan ka booday iyadoo farqan ka boodaya you see taban taabtay all right halkan baa in what kind of preventive sida loo hortagi karayaa proper sanitary use ka doortay wuxuu yiri yes practical waa ka socday you safe iminka saddex waxaan sameeyay saddex questionnaire saddex file baan soo buuxiyay igu filan waan sii wada kaliya gobolada dhan ka buuxin karaya marka waxaan sameeynaa control plus F4 oo ahayd close form waan xirayaa waxaan file-kayga waan soo sameeyay record baan ka soo dhigay check file baan ka soo dhigay ay meeshii jawaabaha lagu gurayay datadii waan ku guray iminka waan iska xirayaa all right waxaan doonayaa inaan arko wixii meesha aan ka buuxinayay data noocyo weey waxaan soo furayaa documentation ama document tab baan soo furayaa waxaan fiirinayaa bal waxay si weeyeen datada aan ku guray meesha waqta view data aan oranayaa yatana file-kii baan dooranayaa ahaa kuwan kale waa kuwa mar hore aan sameeyay kan ayaa hay kii hadda aan ku guray xogta marka open this is the file you have been created okay waa ka file-kii date-kii horta waxaan waa reg number-kii waa ku qoran si kala horeeyeen date-kii case-kii okay age-kii da'doodii residency-gii rain jawaabihii xiran ka dhaxeeya kanoo kale fiiri muxuu yiri kii ninka xamar deganaa kama dhaxeeyo marka god soo banaan yahay all right this is the kind of data we have created haddaan iminka waa maxay waa label kind ama waa yes iyo no xarfaha ku wada qorqoran jawaabaha xarfaan dooranayay marka laga reebo age-ka iyo case-ka haddaan doonayo inaan meesha yes the number u taagnayd number kooga u taagnayd no the number laba u taagnayd kuwan kale oo ah practical laftooda number u taagnaa waxaan doonayaa lambaradii inaan ka dhigo oo aan ka saaro xarfaha meesha ku qoran edit baan tagayaa deetana waxaan oranayaa show values you see now case koobaad age-kiisu waa 21 jir weeyar residency-giisu waa 8 8 maxay ka dhigan tahay 8 magaalo u taagnayd ahayd ergaabo dabcan baan u maleynaa mise burco mid u taagnayd trainku hadda lambar kooga ku qoran maxay ka dhigan tahay waa si u taagan yahay su'aashii ahayd jawaabtii ahayd there is reason there is causal relationship ama yes bay u taagan tahay there is relationship between rain and cholera specify maxay u taagan tahay waxa ku qoran lambar 2 ku hoos qoran maxay ka dhigan tahay there has been a reason that the questioned person has given us qofkii jawaabtii la siiyay oo ahayd there is a sewage contamination wixii aan meesha ku list gareeyay midkood ayay u taagan tahay lambar 2 3 sidoo kale marka waa maxay waa marna waa value oo qoraalkii dheeraa lambarkii u taagnaa baa noo qoran marna qoraalkii dheeraa laftigiisii ayaa noogu qoran meesha all right control plus F4 waad fahamtay taas waxa ku haray file-ka waad samaysay waxaad doonaysaa inaad samayso analyze inaad ku samayso doonaysaa soma marka waxaan u baahan marka koobaad aan xogtan u fiiriyo waxaan
waxa wiilayaa exportation waxa aan ku sameynaya exportation waxaan u export gareynayaa intaan oo dhan waa kuwan waxa wiil karayaa as text baan ka dhigi karayaa database baan ka dhigi karayaa excel baan geyn karayaa stata baan geyn karayaa sps baan geyn karayaa sas baan geyn karayaa r software baan geyn karayaa asoo hadda listir nooguma jiro alright hadda excel baan ku xawilayaa alright waa kan reg file buu ahaa reg ama untitled 4 buu ahaa filekeennii open baan oranayaa halkan waxaa ku qoran waxaad doonaysaa variableskaaga o dhan ama labelkaaga o dhan inaad xawisho oo excel aad ku transfer garayso ama ku export garayso mise qayb baad ka tegaysaa haddii aad qayb ka tegayso kale uncheck baad oranaysaa checkad ka qaas unmark hadda waxaan doonayaa dhammaantood all the records baan doonayaa inaan xagga u xawilo okay wuxuu yidhi 4 file ama 4 questionnaire ayaa loo xawilay meeshii la oranayay excel okay waan export gareeyay waxaan ku export gareeyay excel I will come back here qaanadii ib data imaanaya deetana waxaan tagayaa meesha aan wax ku save gareysanayay anigu ib score ba hadda wax ku save gareysanayay midna ha ilaawin markastaba faylasha asay gareysay oo ahaa quest fileka check fileka rec file dhammaantood waxaa loo baahan yahay inay isku meel ku jiraan haddii aad qaanado kala duwan ku kala save gareyso nothing will work they don't work waa mataano waxay u baahan yihiin inay markasta wada socdaan iminka waa kan number untitled number 2 untitled number 3 untitled number 4 marka waxaan ku yiri kuwa hore ana iska lahaa oo ku sii jireen iminka keenna waa kan kana wada lahayn oo hadda kan ka shaqeynaa waxa untitled number 4 waa check fileki waa kan quest fileki waa kan rec fileki waa kan halkaas aad ka aragtaa quest file okay quest file this is check file this is rec file you see here is telling you the type of file this is what excel file Microsoft Excel waa kii hadda aan soo export gareyna marka automatically halkan buu imaanayaa markaad export tiraahdo qaanadu ayuu imaanayaa double click automatically this is the most correct way of exporting or data entry ib data wuxuu ku fiican yahay waxa weeye data entry markii xogta la xareynayo xogta waxa weeye waa very restricted macnaha waxa weeye unintentionally editing ama waxyaabo gacanta isaga dhacday inuu aqbalo waa isagoo ka mamnuuc waxa weeye markasta wuxuu weydiinayaa yes or no iyo warning box marka xogta aan ku soo guray xagga waxaan u soo transfer garay halkan xogtan laftigeeda halkan waan ku diyaarin karayay oo maxaan kan ugu diyaarin waayay kan error boron baa la yiraahdaa khaladaadka uu nugul yahay waxaan iska qori karay waxaan rabaa halkaas ma hadda ku qori karaya okay there is restriction protect view way ana waxa weeye excel ku restriction male oo warning ma ku siin hadda halka wax ku qori lahaay oo kale iminka waa protect laakiin excel ka caadi let me open a new one iminka halka wax ku qoro you see wherever I touch I can write everything laakiin si ib data ma aqbalayo waxa soo kale xog restrict garaysan oo xadidan ayuu aqbalaya oo aadna intentional aad u galiso marka hadda iminka xogteeda waan arkay this is the kind of data I have entered into ib data okay laakiin halkan waxa weeye waa value labelkii ma aha xarfii su'aalihii ama jawaabihii oo xarfaha kuma qorna waxa ku qoran ayadoo ah value number 2 waxay u taagan tahay jawaab u taagan tahay qoraal dheer u taagan tahay yes ama no ama qoraal dheer sidoo kale marka analyze la sameynayo oo starter lagu analyze gareynayo ama SPSS ama any other analyzing application software badanaa waxay isticmaalayaan waxa weeye values ka xarfiyan ma isticmaalayaan marka this is the better way of analyzing using values rather than labels okay waan arkay iminka waa iska xiraya sababtoo file-ku ay save gareysan yahay close it waxaan ku soo laabanayaa meesha labaad export ku soo laabanayaa waxaan ku xawilayaa stata sorry stata baadan ku export gareynayaa analysis software statistics and data I think so that's the abbreviation waxa laga soo gaabiyay statistics iyo data marka waxaan ku transfer gareynayaa ama ku export gareynayaa statistics click choose the file you wanted to export open yes I wanted to export all the variables
okay all right muxuu ku yiri 4 records are being exported all right waxaan soo laabanayaa meeshaydii oo ahayd meesha waxaan ku save gareynayay you see marka hore check file iyo quiz file iyo rec file iyo excel file baa noo yaalay waxaa kusoo siyaaday dta file waa fileka uu akhrin doono starter fileka uu akhrin doono wey waxaan soo kicinayaa barnaamijkayga starter dabcan aniga waa install garaysan yahay waan haystaa adiga you might have ama soo degsan karaysaa ama waaba kugu jira dabcan starter 11 version 11 waan soo kiciyey okay deetana waxaan oranayaa I don't want to insert manually hadda inaan wax geliyo ma doonayo xogta aan ku guro oo manual ahaan aan ku guro I have an automatically saved file already prepared file baan haystaa open file diyaarsan baan haystaa maxaan wax u diyaarinayaa maxaa u qorqorayaaba oo muxuu yahay this the file kuwan waa kuwii hore waan kuu sheegay ha ku wareerin haddii file hore kugu jireen you should have to choose your currently used file kii hadda aad isticmaalaysay baad dooranaysaa all right open you see here I have exported inserted opened the file I wanted this is how to export the file data file into the statistics then you can analyze it analyze ko usoo laaban doona if I wanted to export about to SPS the same the way laakiin saxoo uu ka yar duwan yahay waxaan oranayaa in can export to SPS all right well for open deetana all records waan doonayaa in la export gareeyo okay hadda waxaan imaanayaa horta waxaan soo kicinayaa soo istaajinayaa SPSS software baan soo kicinayaa I wait baan sugayaa noo habo computerku dulqaad ayuu u baahan yahay adna dulqaad baad u baahan tahay so badanaa markuu mashquulsan yahay u dulqaado sababta inta uu ku dulqaataa ka badan inta aad u dulqaadato right now it's bringing up it's coming up it's flashing it's running my friend SPSS I'm waiting you still now please open please run up yes kii waxay igu noqotay baniyo GIS it's not that much hard please run up yes it's coming up sida laba walaala oo aabba wada dhalay saas maad cuslayn jirin ma ardayda ku adkaynaysaa ardayda ku adkayn xiradooda ku adkayn murudiinta ku adkayn daawadayaasha ku adkayna soo fuq thank you soo fuqday markuu saaf kugu soo furma close the first window cancel waa kan SPSS window waad garanaysaa 3 windows bay leedahay syntax editing iyo these are the windows ay badanaa isticmaasho wax la yiraahdo SPS syntax window output data iyo scripting marka iminka muhiimadda waxa weeye waxaan oranayaa open file so waxaan soo furayaa waa file soo maahan data waxaan soo furayaa marka koobaad syntax waxa la yiraahdo doonay syntax baan doorayaa marka koobaad u fiirso meeshan way ka duwan tahay starter filekayga meeshu yaalay baan aadayaa oo ahaa dabcan halkan baan igu jiraa epi data igu jiraa
deetana waxaan sii gelayaa epi score. You see there's two files, untitled 1 iyo untitled 4. marka faylka noocan waxa la yiraahdaa halka casaanka ku leh syntax baa la yiraahdaa. marka syntax kan soo furaya, marka intaan datadeeda soo furin syntax kan soo furaya. syntax open. warqadan baa ii soo furmaysa. warqadan marka ii soo furmato wuxuu ku sheegay halkaas wuxuu ka tusayaa stepska qaabka loo maro ee loo soo furo data. waxaan sameeynaa marka halkan baan imaan adiga waxba is wareerin. you don't need inaad akhrido waxyaabaha halkaas ku qoran oo dhan. halkan baad imaanaysaa meesha saved horteeda maxaa ku qoran calaamad yar oo xidig ama maxaa la yiraahdaa star button. so xidigtaasaan ka tirtiray meesha. xidigtii baan ka tirtiray meel kale ma sii aadin, intaasaan ka tirtiray. halkan baan imaanayaa run. you see halkan buttonkan run baan oranayaa. warqadan yarta ii soo furmaysa run all baan oranayaa. run all markaan iraahdo windowga baa ii soo furmaya. dabcan halkan waad ku aragtaa datadaadii nooc ka mid ah, laakiin this is not the way I wanted to see it. halkan hoosaan imaanayaa qaanad aan soo furay oo ahayd meeshaan ka soo kiciyay application u dul saaraya tartiib. 3 windows baa halkan ka furan soo maaratid oo ah SPSS windows. marka the last one ayaan tegayaa oo calaamadda plus ka dul muuqato ku dhufo. deetana maxaa ku soo bixi doona datadaadii oo ku xareysan automatically in SPSS. you see the date, the case, the age, residence, rain, values. marka halkan maxaa soo galay iminka value miyaa mise waa label xogta ii xareysan. xogtan maxay tahay iminka. you see from here magaca ii qoran magacyo iyo words ama erayo ii qoran iima qorna lambaradii. haddaan soo furo tii kale ku hoos jirta oo node iyo wixii. marka this is how to export the file in different analyzing or editing software from EP data to start SPSS, Excel or R software, any kind. That's I usually accept the exportation of data from EP to somewhere else. So I hope guys inaad fahanteen casharkan muhiim idii ahaa. khalad badan baa ka buuxa laga yaabaa inuu saan u sharxay, laakiinse this is the basic. marka bilowga qofka beginneriga ah inta uu baahan yahay ogaado weeye. imika waa iska xiriya. I don't need to save this file because already I have the file. waxaan filekan u haystaa wixii iigu jira halkan khaanadii buu iigu jiraa. okay I wanted to button it, minimize, I don't need minimize. all right. okay asxaabtayda quruxda badan sharafta badan qaaliga ah, I don't have much cilmi or knowledge about waxaan sharaxayo aqoon badan walihi, laakiinse I thought this is a very useful, and actually a lot of students I know they feel complicated when they have been asked to prepare questionnaire using such data softwares like EpiData, EpiInfo. I hope inshallah EpiInfo laftigeeda waa soo gelin doonaa, waan soo diyaarin doonaa beginneriga dadka bilowga ka hadlimay dadka culumada ah iiga cilmi badan barnaamijka isticmaalkiisa. saxaabtayda qaaliga ah waad maasantihiin. wixii su'aalaha inshallah complication you will communicate with me at the inshallah possibly at my Gmail. I will put it down into the video. So thank you guys for your watching. Share it, subscribe, disseminate the knowledge to people who actually need it. gudbiya fariinta cilmiga gudbiya inshallah su'aalahana hoos iigu reeba dilahayn. Thank you so much.